nin baa masaajidka eedaami jiray oo uu muwadinka ahaa. Subaxdiina sayladda xoolaha ayuu u dilaal tegi jiray si uu quutal daruurigiisa uga soo saaro. Waxa uu iibiyaa xoogaa xoolo ah oo dilaalka uga soo baxaa iskaga bixiyo biilka qoyskiisa. Haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa suuqii xooluhu xumaaday oo waxba laga iibsan waayey wadaadkii. Wuu yaabay oo talaa ku cadaatay. Isaga oo gadhkiisii u ekaa sonkorta iyo shaaha madow ee la isku daray rifaya oo bidaar aad moodo madaar diyaaradii soo degayso kolba salaaxaya, ayuu u tegey dilaal kale si uu bal xaalkiisa isna wax uga ogaado oo hadduu wax dhaamo bal shaxaad iyo qadadiisa ugu yaraan uga helo. Haddaba intaanu u tegin ayuu 2 orgi oo loo sii dhiibtay oo laga iibsan waayey meel ku sii xidhay. Ninkii dilaalka ahaa ayuu cabbaar ag joogay, waxaanu ogaaday in aanu ninkan laftiisu waxba dhaamin oo isba maanta qatan yahay. Waxa uu ku laabtay halkii 2 orgi ugu xidhnaayeen. Markuu meeshii soo gaadhay ayaa wuxuu arkay 2dii orgi ee uu kaga tegey oo aan meeshii kuba xidhnayn. Cabbaar buu baadhbaadhay ilaa markii dambe uu arkay iyadoo ay 2dii orgi ay adhi kala dhex galeen. Ninkii adhiga watay buu ku qabsaday oo ku yidhi, waar xaggee baad ka keentay 2dan orgi? Ninkiina wuxuu farta ugu fiiqay dilaalkii ka iibiyey. Dilaalkii ayuu kaladhka ku dhagayaa oo ku yidhi, maxaa kuu geeyey 2dayda orgi? Halkii baa la isku dilay oo ninkii wadaadka ahaa budh ku dabada u qabtay dilaalkii ilaa uu u tuuray oo gagabiyey. Wadaadkii ayaa waxa uu dabadeed ka daba tegey kii 2da orgi laga iibiyey, markaasay isaganiina isqabsadeen markuu ku yidhi, dee lacag baa la iga siiyey. Markaas buu kiina budh la dhacay oo ugu tuuray. Waxa uu isku dayayaa inuu soo qabto 2dii orgi. Mid baa ka cararay oo muwadinkii kolba dhinac uga booday. Wuu qaban kari waayey, kadib buu intuu ka daba cararay geeskaa budkii kaga dhuftay oo isagiina gagabiyey. Ninkii oo xanaaqsan oo 2daa qowlal ka xumbaynaya oo gownaxyada cadho la buuraya ayaa is ogaaday oo ku baraarugay salaaddii oo xilligeedii soo dhowaaday. Xaggii masaajidka uu ka eedaami jiray ayuu is yidhi, bal ku carar intaan la gaadhin xilligii eedaanka. Kiyo budhkii adhaxda haysta oo sii socda oo isla sheekaysanaya xanaaqna ku dhan yahay ayaa wuxuu maqlay masaajidkiisii uu ka eedaami jiray oo laga eedaamay. Isagoo muraaro dilaacsan ayuu soo gaadhay masaajidkii oo eedaankii la dhammeeyey oo lagu jiro wakhtigii yaraa ee u dhaxaysay marka eedaan ku dhaco iyo intaan salaadda la bilaabin oo ay dadka qaar 2 ragcadood oo sunna ah iska sii tukanayaan. Intuu hor istaagay meel ku dhow halkii sheekha dadka tujinayaa istaagi jiray, ayuu isagoo 2da daanba ka xumbaynaya oo budhkiisina dhexda haysta yidhi, waar yaa eedaamay? Ciddii uma jawaabin, haddana wuu ku celiyey, waar yaa eedaamay baan idin idhi. Yaab iyo naxdin ayaa lala aamusay. Inta uu meel kasta indhaha ku eegay ayuu yidhi, iska daaya aqiinka ayaan ku garane kol haddaad jawaabi weydeen. Sababtoo ah ninkii eedaamay ayaa alaaba aqiinka salaadda ka hor sameeya, halkaasuuna rabay inuu ka daalacdo kii eedaankiisii isku taataabtay si uu isagana budh ula dhaco. Hab adeegsiga sheekadan dhowr siyaabood ayaa loo adeegsan karaa. Mar waxaad isticmaali kartaa marka waxba lagu sheegi waayo ee aad leedahay kolay anigaa iska garan doonee iska daaya. Waxaa kale oo loo adeegsan karaa xaaladaha inta badan la isku xanaaqo ee arrinku guracan yahay. Midda kale waxaad u adeegsan kartaa marka arrimahaagii ay cid kale faraha la gasho oo aad odhan kartaa, waar horta yaa eedaamay ama iska daaya aqiinkan ku garane. Haddaba haddii aad ka heshay sheekadan, la wadaag asxaabtaada. Mahadsanid.